kulanti wanaagsan soo dhawaada. Muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa ama ku faahin doonaa qaabkee ayaa u samaysan kartaa watchlist ee portfolio. Horta watchlist faa'iidada uu leeyahay maxay tahay? Markii coin market cap aad joogtid, watchlist faa'iidada uu leeyahay waxay tahay tusaale waxaad soo qaadanaysaa oo aad soo gashanaysaa coinska aad jeceshahay inaad ogaato qiimihiisa, ama tusaale coinka adigu aad gadatay aad ku haysato blockchain-kaaga. Halkii blockchain-ka aad ka aadi lahayd oo maalin walba aad soo fiiri lahayd qiimaha coin-ka uu marayo, watchlist ayaa samaysanaysaa. Coinskii dhammaanaya halkaas kugu keenaysaa oo maalin walba wuxuu kuu soo sheegaa coinkii kor u kacay iyo kii hoos u dhacay. Wuxuu kuu sheegaa qaab notification ahaan ayuu kugu soo dhacaa. Marka ma u baahnid inaad maalin walba coinkaaga fiirisid ama aad booqatid exchange-gaaga. Subax waxaa kuu soo dhacaa coinkan wuxuu kacay 10%, kan wuxuu soo dhacay 15% iyo tirada hoos u dhacay. Hadda marka aniga computer ayaan ka sameynaynaa, adigu marka mobilka ha isku dhibin. Haddii aad mobilka isticmaalayso adiga computerka saa u sameey la raac. Haddii aad computerka samaysinna mobilka wuu kuu soo galaa isla emailkaas oo kaliya ayaad u isticmaalaysaa qaybta mobilka. Marka coin market cap waa inaad gashataa email si username aad ugu samaysato. Website la yiraahdo website caan ah oo aan ku soo sharaxay muuqaalka cryptocurrency course-ga, qaabka loo kala ogaado lacagaha trending ah iyo lacagaha cusub iyo qaab walba iyo luuq aan u sharaxnay. Video ka soo fiirso, waxaad tagi kartaa playlist-ga qaybta cryptocurrency course ayaa galaysaa, halkaas ayaa ka soo heli kartaa. Anaga marka muhiimadeena hadda waxaa waaye inaan marka samaysano account. Sign up ayaad dhigi kartaa, sign in waad dhigi kartaa. Ana marka hadda login ayaa leeyahay, account waa ku leeyahay. Marka adiga marka si aan kugu fududeeyo waxaan sameynaynaa marka account-keyga waxaan leeyahay sida adina kugu fudud oo kugu fiican waaye. Waxaad leedahay continue by Google ayaad leedahay. Mar walbana password ku weydiinayo oo sababta password-ka wuxuu isticmaalaa email-kaaga ayuu isticmaalaa. Ujeedaa wuxuuna lahay successfully login ayuu dhahay uu galay. Marka adiga marka profile-kaaga waa share gareyn kartaa. Hadda access-ka aad u leedahay markii aad email-kaaga gashto waxaa kamid ah comment aad ka bixin kartaa, wararka la soo dhigay coin market cap-ka, sidoo kale fikirkaaga ka dhiiban kartaa halkaas coin market cap markii la joogo. Marka waxaad galaysaa meeshaan ku qoran tahay watchlist. Haddana watchlist waxay ku jirto intaan ay ku jirto. Marka full view-na gey, full view aadina waxaa ku tusinaa markii aad watchlist aad samaysid qaabka aad lacag cusub aad ka heshay aad ugu soo dari karto marka. Okay, marka hadaan Solana aad ugu sareeyo BNB ay waxay watchlist-giga marka 30 coins total ugu jiro. Markii aad ku soo darayo marka oo inaad soo daraan rabo add new asset, kadib search ku dhufanaysaa. waxaad leedahay marka page ugu soo dar. Page waa lacagta aan soo dhigay waa idin sheegay oo lacagtan 100 ama 200x ay mar qaarkii lacagaha save ayaa leedahay. Marka inuu ii soo galay sideen ku ogaanayo marka hoos ayaa u dagaysaa oo ka dhex raadinaysaa page inay soo gasho. waa kana kaalinta 3300 ayay ku jirtaa page-ga. Hadda marka haday 30 ay ahayd, hadda wuxuu noqday 31 ayuu noqday oo maxaa la jiro watchlist ah inaan samaysano. Okay, sidoo kale waxaan fiirinaynaa marka portfolio muxuu yahay, sidee ayaan u samaysan karnaa. Marka midka hadda portfolio nooguma samaysana, hadda si live ah u sameynaynaa portfolio bas la fiirinaynaa. Marka portfolio hadda watchlist dhinacan u yaala Soomaa. Watchlist inta ah marka portfolio uu ku xiga. Watchlist marka waxa waaye asaas la aragnay waxa waa in coin-ki aad gadatay aad meesha soo gashanaysaa, wuxuu kuu sheegaa coin-ka inta uu kacay iyo inta uu dagay. Sidoo kale portfolio wuxuu kuu sheegaa coin-ka tusaale $100 ku gadatay maxaa ku kordhay, lacag ku kordhay oo qiyaali ayuu halkan kugu sheegaa. Lacag ma ahan, laakiin wuxuu ku leeyahay lacagtii aad gadatay $100 haddii aad gadan lahayd hal sano ka hor inta aad gadan lahayd inta ku joogi lahayd ayaa halkaas lagu cadeynaa. Tusaale ayaan sameynaynaa marka la fiirinaynaa marka sida uu noqonayo portfolio. qaybta portfolio ku dhufanaysaa, telefoonka waa uu leeyahay qaybta kore oo menu ay ku dhufanaysaa, portfolio ku dhufanaysaa. Hadda main portfolio kale add transaction ayaa leedahay. ICB oo kala gadanaa leenahay. ICB meeqa baa gadataa? Hadda ICB 100 xabaa gataa leedahay. Boqolkii xabo halkii xabo wuxuu kugu fadhiisanaa hadda marka waxa waaye 9.5 waa $9.50. marka total spending lacagtii ka baxday waxa waaye marka $955.
dheedkii halkan kugu sheegaa marka xataa waxaad dhigi kartaa haddii aad ilowdid waqti aad gadatay dib u laabanaysaa waxaa leedahay 2024 ayaan gatay waxaan gatay bishii May ayaan gatay sicirkii bishii May oo kuu sheegaa marka bishii May kowdeeda leedahay marka janjida diid hadda bishii May $12 maray $290 wax buu maraa Somali Bresk $12 maraa marka fee marka transaction fee uu ka baxaa waa gelin profit loss wax ma geli kartaa inta laga qaatay aniga marka hadda dheedkeena waxa ka dhigaynaa maanta ka dhigaynaa tusaale 2024 maanta waxa waaye July 28 ad calendar leenahay haddii 100 xab ICB agadtid intaas ku noqonaya marka ad transaction leedahay marka hadda marka ICB inta uu nooshaa history ICB hoos u dhacday ayuu leeyahay performance all the time inta huma marka 40 saac ugu dambeeyay inta uu soo kaco halkan ku sheega hadhow markuu iska qarin kartaa lacagtan hide ayaa dhigi kartaa oo saaran kartaa sidoo kale lacag kale ku darsanayna ad transaction leenahay meesha lagu darsanaysa waxaan leeyahay marka waxaan kala u baahnaa coinka beeshi kale inaan gato coinka beeshi igad coinka beeshi waxa meeqaba u baahanahay waxa u baahanahay 20 milyan xaba u baahanahay 20 كله 3 4 5 20 مليون حبة وبانا 20 مليون oo beeshe waa $110 hadda marka value oo hadda aan igu jirto all the time profit kayga waa 1% kor u kacay beeshe kale 2% oo kor u kacay ICB na minus ku jira maanta ayuu ku jira marka hadda waxa marka value ahaan meeshan waxa ugu jirto $166 ayaa ugu jirto 9 ayaa ku jirto marka faa'iidada uu leeyahay asna portfolio waxa waa lacagtii real-ka aad gashatay blockchain-kaas ayaa halkaana wuxuu ku sheegaa qaabka uu isku bedelay lacagtaas muu baahnid marka inaad aadid blockchain-kaas ama rabo gashid ay coin market cap-kaas galaysa oo kaliya meesha ka fiirinaysa inay wax ku kordheen inay wax ka naaquseen wararka soo dhacay xataa news ahaan oo notification kugu soo sheega wixii soo kordhay iyo wixii naaqusay marka waxaan rajeynayaa inaad fahantay sida portfolio loo samaysto iyo sida watch list loo samaysto adigoo coin market cap adeegsanayo waxaan rajeynayaa in koorsadan cryptocurrency aad ka soo faa'iiday haddii aad su'aalo iyo waxyaabo mawduuciya aad u baahantahay inaan ka soo hadlo qaybta commentiga soo dhaaf insha Allah soo falanqeynaynaa aadan u maasantiin